Soomaaliya waa dal burbursanaa muddo 30 sano ah balse waxaa haatan muuqanaysa soo kabasho iyo waliba in dib loo yeeleelayo hay'adihii muddo 30 sano ah ka hor ku burburay qaranjabkii Soomaaliya waxayna dawladda haatan jirta muddooyinkii dambeba ku hoolanayd dib u yeeleelidda hay'adaha iyo waliba wakaaladaha kala duwan ee ku burburay qaranjabkii Soomaaliya 1991 waxaana maanta si hayaha xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Khadar Mahdi Guuleed xariga ka jaray macadka sare ee daraasaadka amniga dalka oo ay leedahay hay'adda تعلينta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya joogta loo aasaasay macadkan ayaa lagu sheegay inay tahay kordhinta xirfadaha iyo kor u qaadida daraasaadka amni ee dalka sida ku cad war qoraal oo baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dadaal dheeraad ah gelisay horumarinta amniga dalka isla markaana horumarin lagu sameeyay waxyaha kala duwan ee ammaanka dalka taasi oo sahashay sida uu ku sheegay qoraalkiisa in bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ay ku naalooto nabadgelyada Soomaaliyeedna uu horumar ballaaran ka gaaray ammaan ee uu iminka ku sugan yahay Khadar Mahdi Guuleed waxa uu sheegay in furitaanka macadkan ay ka dhigan tahay tilaabo weyn oo horey loo qaaday hagaajin doontana amniga guud ee dalka iyo waliba ka baaraandegidda istiraatiijiyadaha amni ee mustaqbalka la doonayo in dalka lagu hago furitaanka macadkan ayaa waxa uu ka dhigan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay heli doonto hannaan iyo hab ku aadan kor u qaadidda istiraatiijiyadda amni ee mustaqbalka